kamid ah waxa isticmaala warshadaha qaarkood wax guba oo fornooyinka iyo wixii la midka ah oo dabka abuura ayaan dhaweyd waxaan damacnay baabuur aan ugu talagalnay inuu laamiyada iyo waxaas maaragtay daamurka u dhalaaliyo ayaan waxaan islahayn tijaabiye marka waxaan rabnay inaanu intaanan laamiga ku shubin oo libroshato ku shubno magaalada ku soo wareegnay waaba ka weyn laba fuustaan waxaan aad baan u raadinay waana noo suurtoobeed inaan helno marka kulli by product wax kale loo isticmaalo weeye ma aha maxaa la yiraahdaa wax maaragtay wastes badan oo wadanka bedelaya leh ma aha intaa waxaa raacdaa de qofkii garaash lihi dadku iska kala waa kala baalisan yihiin qof wax iska daadaadinaya wuu jiraa baabuurta waaweyn oo waxaa badanaa dhibta intay istaagto magaalada duceheeda halkaa filtarada iyo kaga xumaadaan fura mooyaane kuwa garaashada wax lagu bedelo siyaabo kale loo isticmaala fuustooyin bay ku shubtaan iyagaa dib wax cabaysta marka ma jirto meel baahi gaar ah haddeer in meel loo sameeyo keenaysa waad ku mahadsantihiin dulqaad waxaan ku roonahay su-aal kasta oo la weydiiyo jawaab baan u hayaa waxaan ahaa maayarkii ugu horreeyay aqbalay in lala xisaabtamo intuu dadka soo hor fadhiisto la yidhaahdo xoolaha meel ku sheeg marka haddana wax kasta oo su-aal insha allah jawaab baan u hayaa marka laakiin meelaha qaarkood waxay la gelayaan war badan oo qayb hadda aan shirkaan lahayn ayay la geli doontaa u dulqaata marka xoogaa waqtiga haddaan qaato insha allahu tacaala su-aal ugu badan waxa weeye labada geedba ku nool yihiin geed baa jir saddexaad oo ay dadku necab yihiin oo maalin xataa tababar la iga dareeray oo waxaa la yidhahdaa geedka la yidhaha garanwaaga waa geed aada muhiim adduunka ugu ah barosomos julafalhore baa scientifica lagu yidhaahdaa laakiin dadkeena ma jeclo markiiba allaan bay qaataan markay maqlaan waa ka xanaaqaan marka iga raalli ahada rag baan hadalkoodii xoogaa kufsaday raalli ahada excuse NGO ku hawlan isaguna dhiraynta iyo ilaalinta bay'adda iyo ilaalinta xaalufka ka doodidda iyo talabixinta qashinka arrimahaas oo dhan marka intaan shaqadan ku jiray hadda oo dhan waxay ahayd 10 sano way tahay garow intaan shaqadan wadnay 2012 baan bilownay ilaa iyo haddana waa wadnaa waxaan xusuustaa kow markii anigu shaksiyan dadka environmentiga u doodaan environmental activist baan ahay oo awal waxbarashada dibadda ay ahayd markii aan dalka imanay iyada uun baan maaragtay sii xoojiyey inaan wixii aan naqiinay aan maaragtay ama ku shaqeeyo ama dadka ka wacyigeliyo sidaa darteed markii aan imi meel hadda la yidhaahdo meel tarayla la oran jiray ama hadda waa la yidhahdaa aagaas oo dhan oo magaalada galbeedkeeda ah oo ahna meesha dalxiiska ugu badan oo biyo iyo cagaar bale halkaas baan waxaan ka helay aan dhul ka qabsaday dhulkaasoo aan horumarinay oo hadda waxaan ka furay meel resort ah cafwan Soomaaliya iyo meel dalxiis oo khaasan madcam ah hadda oo la yidhaahdo arlo waa magac Soomaali waa arlo dhul waxaan uga jeedaa marka wuxuu leeyahay markii aan dhulkaas la soo wareegay oo wixii ugu horreeyay oo aan meesha ugu tegay cagaarku ahaa mase badnay waxaan go'aansaday in aan sii cagaariyo waxaa dhacday in aan waayo wixii aan ku cagaarin lahaa taas baa marka ani markaas qorshahaygu wuxuu ahaa haddaan cagaar helayo waa soo gadan lahaa keliya hawl kale ma galeen taas baa waxay igu kaliftay in aan abuuro ilaahay mahadiis dalsan waqti badan bay nagu qaadatay inaanu dhir isu keenno abuur keenno dalal kala gedisan ka keenno
sidii hadda khiyaartii iga horreeyay oo guddoomiyaha iyo agaasimaha iyo deeqayo kulli ay ka shaqeeyeen waxa weeye haddee dhirta lafteedii baa waxay u baahan tahay sinjiyad magac sanad fiican baa loo horseediyeyso geed kastaan kuma bixi karo dhir gaara baa ka bixi karta wakti badan bay naga qaadatay taa lafteeda in aan helo dhirta halka bixi karta waa la yaqiinay geed iyo 2 iyo 3 oo ilaa iyo waagii gumaystihii maaragtay daraasado kooban oo la sameeyey laga dhaxlay oo la ogaa laakiin daraasadaasi kuma filayn sababtoo wax badan baa isbedelay oo dhirta ku saabsan adduunku isu furfurmay waa la kala xiraa taas waxay keentay marka inaan dhir badan keeno oo dhulkan ka bixi karta oo waxyale oo geed mirood leh oo leh muxuu ahaa geed hareed leh runtii aad baan ugu mahadcelinayaa dadka cagaar ka qayb qaatay way badan yihiin oo cabdullaahi salaado hadda inala fadhiyo dooxadhan cagaariyey meeshiisuna ay tahay meel aada u ciid fiican run ahaantii oo dhir aan hadda ka bixi karin garowa dhexdeeda ay ka bixi karto oo geed miroodka u badan waan ku guulaysanay ilaa xad in aan maaragtay dhirtaas aan helo cagaar intii ka badan waagaasaan bilownay geed soomaalidu ay u taqaano lebidoqon oo hadda ardayda ka muuqdo halkaas ku yaalo calafka xoolaha ku fiican aada ugu fiican geedkaa u baa jiray waana isbeero isagaa isbeero oo waxa ula kaasi maaha xataa wax badan buu weynaan ficilaa keliya hadii LM oo caawa abaabulkan iyo sukeenkan bulshada waqti badan geliyey kuna dadaalay inay dhacdo inoona soo bandhigay mowduuc aada muhiim uga ah bulshadeenna oo ah arrimaha bulshada ay tahay in la iska waraysto lagu sameeyo daraasad lagu sameeyo lagana wada qayb qaato haddaan si gaar ah aan backgroundka arrintan uga warramo waddankeenu wuxuu ahaan jiray waddan dhir leh oo kayma ah oo xayawaanka oo dhammi ku nool yahay oo maxaa la yidhaahdaa geed walba oo adduunka jira intiisa badan ay ka baxdo ee climatekaa maaragtay ka bixi kara laakiin waddankeennii isticmaalkii bulshadeenna oo aan ahayn isticmaal wanaagsan ayaa sidan u galay ma garanayo dhalinyaro badan inay ka warhayso laakiin waxaa dhici jirtay dhirta sideeda waxna waa lagu ootaa siyaabo kalena waa loo isticmaali jiray xataa waxaa dhici jirtay xilliyadii hore oog wax la yidhaahdo oo ah qofkii xool ka lumaan inuu kob weynaatay dabgeliyo si maaragtay kobtaasi ay u ifiso arradoo dhan oo markaa uu habeenkii baadidoonkiisa ugu galo ayuu kob dhan wuxuu surayaa dab surayaa ama qofkii wax ka habaabaan ama reerihii kala habaaba ayaa oog shidi jiray markaasay oran jireen reerkii dadkiina ka habaabay xaggaasay joogaan aynu aadno sidaasi waxay keentay isticmaalkaasi aan fiicnayn in dhulkeennii uu nabaad guur noqdo oo uu dhir la'aan noqdo magaaladan Garowe magaceeda sida ka muuqata waa garow waa geedka quraca ah ee gaagaaban oo siman bay lahaan jirtay oo aan maaragtay aad u adagtay in la dhex maro laakiin maanta waa u jeedaan waa dhul saxaara ah togeenna kan Garowe ama Jamaqarsho wuxuu ahaan jiray tog leh dhir waaweyn iyo dhir yar yar iyo dhuur iyo wax badan oo maaragtay dhir u lahaan jiray laakiin sidii loo jaranayay sarab looga dhiganayay oo waxa toga dhinaciisa carishada ka dhisan iyo dhirta ka dhisan iyo dareedaha ka dhisan lagu dhisay weeye waa la baabaash intii soo hartayna haddeer aad aragtaan in gacanta lagu hayo oo geed quwaaxiina la siibayo geedkii weynaayo oo damalka ahaana dhuxul laga dhigayo oo xataa waxaan taariikhda hore u dhicin ayaa sanadka nugaal ka dhacay markii dadkii ay ka hayaameen ay cidlowday geedgeedkii quraca ku yaalay dad baa intay gaadiid ula tageen oo gawaari ku dhufteen markay qalaleenna jarjareen waxay ka dhigteen dhuxul dalkan marka waxaa biiyey dad qaabka ay u fikirayaan iyo aqoontooda iyo garaadkoodana halkaa gaarsiisnaa hadda innagu waxaynu nahay jiilkii soo gaaray dalkii oo liita oo maaragtay dhir yar oo isbedeshay maxaa la yidhahdaa cimiladii oo roobkii ku yaraaday
oo maxaa la yidhahdaa daaqii ku yaraaday hadda xoolihiina ku bateen haddeer markii abaar joogta ah ayaa dabada la isu geliyey waxaasna waxaa sababay wixii ay bulshadaasi ay iyadu geysatay oo gacanteeda ku geysatay bimaa kasabat aydi nnaas waxaynu u baahannahay marka inaynu isbeddel samayno waxaynu ka hadlaynaa oo keliya haddeer magaalada gudaheeda laakiin magaalada gudaheeda maaha waxaan rabaa magaalada gudaheeda iyo magaalada bannaankeeda oo dhulka daaqeynka ahba in isbeddelkani uu gaaro wuxuuna ku gaari karaa in wacyiga bulshada wax laga beddelo magaalada Garowe xilligii dawladdu jirtay dawladdu waxay samayn jirtay dhirta khasab bay ahayd magaaladuna beero dhirta lagu soo saaray lahayd oo beerta dawladda la yiraahdo guryahana waa lagu beeri jiray haddeer haddaad dib u milacsataan xaafadihii magaalada hore ka haray oo wada jir iyo waa beri dadku waa ka garaad sareeyaan xataa dadkan magaaladan cusub degay oo dhir bay leeyihiin oo dhirtooda waa ilaashadaan waana dadka ugu danyar iyo magaalada meesha ugu qiimo jaban laakiin dawlad bay soo arkeen guryahaas maaragtay dhiraysa oo magaalada ku khasabta dadku inay dhireeyaan dhirtiina sidii bay u ilaashadaan ma jiri jirin xilligii dawladda reer guri maxaa la dhistay oo aan geed lahayn laakiin hadda waxaa dhacda dadku inay guryo qaaliya dhistaan dhirna ayaan lahayn hadda marka waxaa jirta caqabado ku gadaaman in magaaladu ay cagaar noqoto caqabadahaas waa caqabado ka imaan kara dhinaca bulshada sidaynu hadda ka hadlayno oo ah wacyigooda oo inay wax yeelaan mooyaane aysan waxba tarin dhirna ayaan ka fekerin cagaarintu macnaha u leedahay ayaan garanayn godintuna ay garabka u suran tahay inay wax gooyaan un bay rabaan laakiin inay wax beeraan ma rabaan caqabadana waxa weeye kuwo cimiladu ay keentay iyo meesha aan ku noolnahay halka aan ku noolnahay geed walba kama bixi karo dhirta qaar baan ka bixi karin dhirta qaarna waa ka bixi karaan geedaha marka ka bixi kara waxay u baahan yihiin in loo dooro ee dalqabad kale geeduhu ka bixi karaana wada geed abaareed maahano roob la'aan iyo biyo la'aan iyo waraabi la'aan kuma bixi karaan in yar baa kaga bixi karta caqabada kale waxa weeye dhulka noociisa dhulkan hadda ay Garowe ku taalo waa dhul cusba ah oo dhagax ah oo maxaa la yiraahdaa geedaha qaarkood u diidaya inay dhulkaas ku baxaan waxaan aragnay geedo si fiican loo talaalay la beeray laakiin markii ay xoogaa koreen oo qof joogiis gaareen haddana dib u dhintay sababtaasna waxay sheegaysaa inay dhulka sii mari karin oo ay nafaqada u baahnaayeen ayaan ka heli karin xoogaagii la siiyeyna ay intaa ku leysteen ayaa ka muuqata marka taasina waxa weeye dhulka noociisa waxa iyaduna caqabada ka mid ah biyaha wadankan biyuhu aad bay u yar yihiin inkastoo Garowe ay nugaal ku taalo ceelashii hadda guryaha ku yaalay lama isticmaalo tuubooyinka magaalada la isticmaalaa biyihiina waa lacag qofkii marka wuxuu ka fikirayaa kharashka uu biyaha ku bixiyo hadduu dhir ku waraabiyo walwal kala sii gelay xagga kale shirkadihii waa shirkado public private ah oo private ku rangareeyo badankoodana dawladaha hoose aan hoos iman sida darteed wadooyinka dhirtii ku taalay laftigeeda laguma waraabin karo sababtoo ah shirkadii waxay leedahay lacag bay u baahan tahay mana ogolaanayso arrinta waxay marka u baahan tahay arrintaasina caqabadahay ka mid tahay oo dhinaca biyaha ah mar walba biyuhu waxa ka muuqda inay yihiin ciriir yihiin isbeddelkan cimilada hadda dhacayna wax badan oo kale soo kordhiyay roob la'aan baa badatay sida darteed caqabadahaasi waa caqabado jira waxa kale oo jira caqabado kale oo ka imaanaya maxaa la yiraahdaa bulshada dhirta lagu beero badanaa dhirta hadda laamiyada ku beeran waa dhir dawladdu beertay geedka in la beero la nafaqeeyo bir la geliyo la waraabiyo ilaa uu weligiisba dawladdu gacanta ku hayso wax aad u adag waana wax hadda maaragtay hawl badan loo galo iyadoo intaasi jirto ayaa qofkii gurigiisa uu ku beernaa ee isagoo geedka manaafacaadsanayay oo inuu koro ay ahayd oo uu ilaashado ayaa wuxuu samaynayaa hagardaamadiisii uu ka qayb qaadanaya qaarkood dadkoo dhan ma waxay samaynayaan biyo oo malay ku shubayaan biyo saliid lay ku shubayaan olyooyin bay ku shubayaan waxay samaynayaan baabuur baa ku dhacaysa
وإسكا فيرسانيان أري وعنية وأوجيدان عرور باشريسة وحبك ما قبان برشة سجيت كاس وح معناه وما فريش مركب برشة وحي باهن تهاي إن قفك لفهم سيو جيت كان جورجي سكوري على يونس انتفاعي هاي يسوون ليه هاي جيت كانوا كدي بديه مركب قارك وقف العكس كبدل بحث خرج كجلي عادمة وعلى مركب وحين لا يعني باورك كل عرنا كما دبتجيان تاريخ كقريميان وحبا ما ركت وما أركاني سيدا درت برشة وحي باهن تهاي سبدل يوعي قليل إلا وصبري waxaa jira iyaguna xoolaha magaalada lagu haysto magaalada waxa lagu haystaa xoolahaasi inta u badan waa ari waxa hadda soo bilowday oo hadda aan ku aragnay geedaha cuna geel waxa jooga dameero waxa soo dhan wax magaalada badana laga anshaxo maaha hadii xoolaha la xirayn lahaa haddana la soofin lahaa wax dhibaato ayna kuma hayeen dadka haystaana waa manfaacsan lahaayeen waxay ka dheefaan xalaal bay u noqon lahayd laakiin xoolo badan oo lambar dheeg laga buufiyo magaalada lagu sii daayo dhirta xaganaya oo sawirada aan ka helnay hadaan inta tusnaad yaabaysaan ayaa magaalada ku jira isku day baan sameynay sanadkii hore muddo markaan wacyi gelin wadnay qayb baan ka saarnay laakiin xilli abaara dhacay intii dambe waa ka saari kari weynay maadaama meel la geeyay ay jirin dadkiina ay maxaa la yiraahdaa ayan aqaadan talooyinkii aan siinay aha xoolaha inay soofsadaan oo xiraystaan ma ayaan qaadan in badan baa wali magaalada lagu sii daayaa dad wanaagsan oo badan oo xoolahooda soofsadaan oo xiraystaan waa jireen caqabadahaas marka jira waxa kale oo jira dhirtarista magaalada dhexdeeda ayaa waxa dhacda geedkii inta laga maray oo weynaaday oo kharash badan loo galay ayaa reerkii gurigii bay duminayaan inay dib u dhisaan bay rabaan geedkii hortooda ku yaalay bay goynayaan iyagii baa goynay geedka wixii laga maray oo dhan way laawayaan ayaga dantooda iyo maslaxada markaas iyo dhismaha ay wataan ayay u isticmaalayaan marka mushkiladahaasina hadda mushkilada jira way intaas oo dhan oo jirta hadda fursado badan baynu haysanaa hadda inaynu maanta isu nimi maalmo badan isu nimi shalayna jaamacadda joognay oo research laga sameeyay wax badan aynu ka wada hadalnay waxa soo kordhay dareen in dhirta loo baahan yahay iyo wacyi gelin bulsho oo dhinaca aqoonyahanka iyo dhinaca maaragtay dawladda iyo dhinaca dadweynaha ka socda marka arintaasi waxay keenaysaa rajo wanaagsan oo inaynu maaragtay dib u celin karno deegaankeenii dhibaatadu gaartay oo aynu dib u cagaarin karno waxa kale oo jirta dhalinyaro badan oo isxilqaamayaal horena uga soo shaqeeyay haddana diyaar u inay ka shaqeeyaan iyo dad waxgal oo bulshada ka mid oo sidoodaba ku hawlan cagaarinta dhiraynta talaalista iyo dhiirigelinta ay ka mid yihiin maxaa la yiraahdaa dadkan hadda horteeda fadhiya in fiican oo ka mid waxa jira ganacsato dhaqaalahoodii geliyay si wadanka u bedel lahay wajiga dhirta in la jaro oo sameeyay beero waaweyn iyo maxaa la yiraahdaa dhir badan oo wadankii dadkana u muujiyay in wadankani wax walba ka bixi karaan iyagiina maxaa la yiraahdaa maxaa waqtigoodii iyo dhaqaalahoodii geliyay qaarkood hadda xoolana waa ku dareen xoolihii oo la dhaqaaleeyay iyo maxaa la yiraahdaa beerihii ayay isku sameeyeen waxaan arki jiray xilliyadan oo kala abaartu saa u xumaato xoolaha miyigu waa wada guraan oo wax caruurta magaalada joogtaana caano xoolaad baa waagi hore la siin jiray intaan caano boorhu badan xilligan oo kale islaamu intay joogay qaataan bay wadooyinka reer miyigu ka soo galo sii lugayn jireen midaba mid ay ka hormarayso bal qof ka hortagayso laakiin maanta abaartii ugu darnayd baa jirta caanihiina waxay yaalaan supermarket kasta taasna waxa weeye ganacsatadeenii oo u jeensatay inay wixii wadanku lahaa ay maalgeliyaan oo xoolihii iyo beerihii waxa jirta jaamacadaheenii iyo aqoonyahankeenii ayaa iyaguna waxay ka shaqeynayaan sidii daraasada looga sameyn lahaa sida loo cagaarin karo magaalooyinka sida magaalooyinka loo dhireyn karo
sida maaragtay kaymihii la burburiyey dib loogu soo noolayn karo ayay daraasad ka samaynaysaa arrintaasina waa fursado maaragtay wanaagsan oo maaragtay hadda aynu haysano haddaba waxaan isleeyahay maxaynu qaban karnaa qaybtaa waxaan u daysanayaa insha allahu tacaala discussionka panelka oo waxaan rabaa bal wixii aynu qaban karno haddeer inaynu discussionkeena ka galno sababtoo ah aqoonta iyo maaragtay fahamka iyo garashadu dadkana waa u siman tahay intaan anigu ka qabo hadhow waan sheegi doonaa idinkuna su-aalihiinna iyo jawaabihiinna ayaad ku keeni doontaan haddii rabbi idmo laakiin waxaa noo ballana inaynu jahayno bulshadeenna dalkeenaan kaymo ahaan jiray kaymihiisa aan ku soo celinno halkaa inuu noqdo yoolkaan hiigsanayno siduu ahaan jiray inaan ku soo celinno waddankan dhugaashaas meeshaa la yidhaahdo haddeer cadadheero oo boorku ka kacayo oo dhirtii ka guurtay waxay ahaan jirtay baa la yidhi meel aan libaaxa loogu gelin libaaxuna dee meel jiq ah oo kayn habu ilaashadaaya meel bannaana isma soo dhigo dee markii dhulkii nabaad guuray isagina waa iska tegey waa qaxay laftigiisii meel ku noolaadu waay marka waxaynu u baahan nahay waxaana xayawaanka iyo dhirta iyo waxaan ilaahay wuxuu isugu miisaamay adduunka waa isu miisaamay wax walba waxay leeyihiin faa'iido wax khasaare leeyihiin wada khasaare ah ma jiraan wax walba faa'iido iyo khasaareba waa leeyihiin ilaahayna wuxuu ugu talagalay dhulka hadday dhib kaliya yihiinna ma abuureen marka isbeddelkaa dhacay iyo xayawaankaa dhammaaday dhibaatooyin kale ayuu la imaanaya marka aad iyo aad baa umahadsan tihiin kasoo qaybgalkiina waa mahadinaynaa dadkiina ku casumayna aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waqtiga badan geliyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdisaaq gosol baa la yidhaahdaa waxaan uma in badan idin ka mida waa kolley waa isgaranaynaa inkastoo gabadhu taytalka khaladay waxaan ka mid ahay dadka u adeega bulshada oo barnaamijkan caawa qaybta ka ahaa soo qabanqaabintiisa marka waxaan rabaa inaan idin idhaahdo dhammaantiin ku soo dhowaada fagaarahan Somali Innovation Talks ku soo dhowaada xarunta Somali Innovation Hub oo halkan caawa idinku casuntay iyadoo kaashanaysa bahwadaagteeda hay-adda LM International oo qayb ka ah hirgelinta barnaamijkan waxaan rabaa inaan idin iraado soo dhowaada waxaynu caawa isugu nimid fagaarihii labaad ee aan ugu talagalnay bulshada reer Garowe inay uga wada hadasho ama uga wada xaajoogdo caqabadaha jira iyagoo markaa ka faa'iideysanaya fursadaha la rabo inay iyagoo aan rabno anuu telefoon baa wareeriyay balaaska qabtay okay annagoo rabna in xalka uu noqdo mid bulshada dhexdeeda ka yimaado fagaarihii koowaad halkan aan ku qabanay wuxuu ahaa inaanu ka hadalnay waxyaalaha la xiriira digitalizationka iyo in la helo bulsho u nugul ama u diyaarsan inay ka qayb qaadato fursadaha tiknoolajiyadda in la helo bulsho aan mas'uuliyiin u ah inay ka faa'iideystaan fursadaha uu leeyahay isbeddelka tiknoolajiyadda oo ah waxa ay adduunku ku horumaray hadda xilligan lagu jiro waxaan u aragnay inay muhiim tahay inaynu iska wareysano fagaaraha labaad uu noqdo maadaama bayska uu yahay Garowe caasimadda Puntland mid ka mid ah waxyaalaha ugu mudan oo qof walba qalbigiisa ku taamayana ay tahay inuu ku noolaado Garowe qurux badan Garowe cagaaran Garowe ay la tartamaysa caasimadaha caalamka ka jira inaynu qayb ka noqono waxaas inaga qalbigeena ku jira oo aynu danaynayno waxaan ugu talagalay fagaarahan marka inuu noqdo mid bulshada runtii ay noqoto mid qayb ka noqoto xal u helidda waxyaalaha ay iyagu rabaan ama ay danaynayaan in la gaaro marka waxaan rabnaa intayna halkaan isugu timid iyo inta ina ka maqan oo aan isleenahay waynu ku soo biirayaan xilliyada kala duwan inaynu isbeddelka horumarineed ee aynu rabno
uu noqdo mid innaga ina ka yimaado waxaan rabnaa waxaan ku shaqaynaa wax la yiraahdo waxaan arki jirnay mararka qaarkood iyadoo la yiraahdo isbedel baan rabnaa dhinaca siyaasadda la aadi jiray laakiin annagu waxaan rabnaa change ka yimaado society-ga innaga waxaan rabnaa nolosheenna sida ay hadda u eg tahay si ka bedelan oo ka qurux badan inaynu hore u higsano bini'aadamku mar walba meeshuu joogo meel ka qurux badan bay bulshadu higsataa marka waxaan rabnaa wax la yiraahdo social change inaynu inagu grassroots guryaheena ka bilowno inaynu isbedel samayno isbedelkaasna uu noqdo mid inoo horseeda meesha aynu higsanayno oo quruxda badan waxaan aaminsanahay oo ku shaqaynaa wax la yiraahdo ka wada qaybgal inclusiveness bulshadu inay ka wada qayb gasho waxa ay rabto inay qabato xarunta Somali Innovation Hub oo waxa ugu badan oo ay ka shaqeyso ay tahay waxa loo yaqaano social innovation ama waxyaalaha in la helo ama laga wada hadlo ama xal loo helo bulshada saameynta u leh haday noqon lahayd adeegyada ay bulshadu bixiso in la fududeeyo haday noqon lahayd waxa loo yaqaano waxan social service delivery la dhaho in bulshadu hesho adeegyo horumarsan oo baahidooda daboola iyo oo ay bulshadu qayb ka tahay si taa lagu helo marka ajandaha iyaga anaga noo degsan waxa weeye in ay bulshada ka soo dhaxbaxda uusan noqon wax banaanka ka yimaada waxaan aaminsanahay inaynu ku dhex jiraan dad talent leh aqoon leh maskax leh mufakariin ah wax badan keeni kara dadkaas marka waxaan u diyaarinay platform-kan aad aragtaan oo Somali Innovation Talks wuxuu noqon doonaa ama aan u qorsheynay inuu noqdo mid bulshadu nooc kasto ay tahay ay dareenkooda aragtidooda iyo hal abuurkooda ay isleeyihiin nolosha wax ka bedelayaan ay ku soo bandhigaan waxaan rabnaa mas'uuliyiinta halkan caawa nala joogta iyo kuwana daawan doona hooyooyinka dhalinyarada qof kasta waxaan aaminsanahay inay ku jirto karti aqoon hal abuurnimo iyo wax isaga qofkaas ku jira oo uu rabo inuu qayb uu gaaro waxaan rabnaa inuu platform-kan ku soo biiro oo qayb ka noqdo platform-kan waxa iska leh dadka Soomaaliyeed degan Garowe iyo meelaha kale oo aan isleenahay aad gaartaanba waxaan rabnaa inuu qofkii yimaado uu ka mid noqdo lahaanshaheeda uu ka mid yahay intiin caaw halkan joogta hadda waxaad ka mid tihiin tolka Somali Innovation Talks ba ka mid tihiin qof kasto yimaadana waxaan rabaa inuu tolka ka mid noqdo waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dhammaan mas'uuliyiinta halkan waqtiga gelisay dhalinyarada ka qayb qaadatay shaqadan quruxda badan caaw inoo qabsoonto annagu waqti badan ma rabno inaanu hadal gelino waxaan rabnaa hadalku caaw dhinaciina inuu jiro waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadnaqo gudoomiyaha golaha deegaanka Garowe ahna duqa caasimadda Puntland oo barnaamijkan runtii markaan u bandhignay si qiimo leh noo soo dhaweeyay muujiyay garab istaag iyo dhiiranaan isaguna noqday mas'uulkii ugu horeeyay ee dawli ah oo yimaada bulshadan hor imaanaya waxa ay rabaanna waan kala niqaashaya waxa ay tabanayaanna waxaan rabaa inay i weydiiyaan wixii aan anigu u qabtayna waxaan rabaa inaan u sheego aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan rabaa hal mar inaad igula sacabisaan ku soo dhiiranaantaas aad iyo aad baan u mahadsantiin dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu in dhirayn ama dhir cadadkeedu leeyahay 4 milyan la yiri waxa lagu taageerayaa Puntland marka madashan aan kaga faa'iideysto madala horena waa fursad waa ku waayay inaan ku weydiiyo ma jirtaa wax qabad ama laga dhabeeyay waa laga yaabaa intii wixii la balan qaaday haddana xaalado inay imaadeen oo wixii la keeni waayo ma la keenay oo wasaaradda wixii ma loo gudbiyo ma la siiyay haddii se la siiyay wax ma laga qabtay haddii wax laga qabtayse saami intee la eeg bay 4 milyan caasimadda ku leedahay duqa degmadana ku leeyahay waa laga yaabaa in kala hadlay laakiin waxaan rabnaa bal anagu xaq muwaadin ahaan oo magaalada jooga oo maanta oo dhan yaan la dhihin shacabku wax dhireeyaan shacabku wax sameeyaan bal shacabku iyagu laftigooda waxay uga baahan yihiin dawladda taakulayn caasimaddu wax ma ku leedahay oo anagu shakhsi ahaan muwaadin ahaan anagu ka shakhsi ahaantayda wax ma ku leeyahay مدن waxaan ku weydiinay su'aasha waxa weeye siyaasad yani waxa jira carqalado oo ugu tiro badan oo Garowe ka jira oo sanadaha ugu dambeysay ah dhul xareysi dadka dhulka xirmaysta amalan yad kulan Garowe ku dhashay inta ku soo leekaaday habeena kama dhixin marka Garowe agaar baan jiri
ma garat marka geed qurci iyo geedihii dhamaa waxa uu baabiya cagaf dhulka la xirmeenayo taasna lagu darin carqaladaha yani dhibta ka jira yani haysta challenge haysta yani dhinaca cagaarinta midda kale waxa weeye xaabada ma leedahay yani qofkii geed gooyo ama dhir baabiya يعني بوليسي مشروع مكدسنتها إما عقابات يعني دولة ما لها ما كوجدا هدي سجدنا محاول قد بق ويدان واحد كنا ماله جناعس حابة الله كانوا ذاتك جناعس تدا أو حابة جناعس ده محاد يعني عقاب ومرتين ويدان سيس أديب وقول لعبان إن حافظها محاول كنا على عايز درت أوبرانتها حتى وجده هو وين سكله دولة دوس حلقة إنه يقعدوا sanadkii kale guryaha ay maaragtay lacag laga ururiyo hadii la yiraahdo guriga geed iska leh 5% baa laga dhimayaa guryaha aan iska lahayn dhirtana ama korontada oo kale ama waxyaabo la midka $1 baa maaragtay la dul saaraya maamooyinka aad bay u jecel yihiin guryaha dhan maamooyin baa iska leh maamooyinka marka aad u jecel yihiin marka la dhaho waxba la dhimaya aad u jecel yihiin marka inaan sidaas ahaan uga yara faa'iideysano dhahno dawladda hoose lacagta ka qaadaysa guryaha ama cashuur ahaato wax un baa laga dhimayaa guriga geed iska leh guriga aan lahayna $2 ama $1 kala la saaraya marka fikirkaas waxaan qabaa in maaragtay dawladda hoose ay dabaqdo xogaa way raxjiimada marka la yiraahdo dawladda lacag dhima laakiin xal badan baa ku jira waxaan rabaa anigu inaan iska sii cagmariyo maadaama su'aalaha ay badan yihiin 4 milyan oo geed oo Ethiopia ay tiri Soomaaliyan Puntland baan ugu deeqaynaa ayaa jirtay daafur loo sameeyay anigu waa ka qayb galay waxaana qaybtii ugu horeysay la keenay 50,000 oo geed kii ugu horeeyay airportka ayaan maalinkii ka taagnay oo ka dhagax dhignay 50,000 oo geedna waxay gashay Puntland bay gashay beeraha qaatay magaalooyinka qaatay waa la qaybiyay kuwii kalena awal waxa lagu ballamay 3 biloodba in mar la keeno 50,000 oo geed sababta waxay noqotay 4 milyan waa u diyaar garaysnaan weynay inagu inaynu beerno kharashaad u tiro badan gaadiid u tiro badan wadanka oo dhan loo qaybiyo ayay ahayd marka waxa la yiraahdo si tartiib aan marka hore ku bilowno intaan qorshe u sameeyno waxay la tahay markii labaad oo la keen lahaa soo dhow sidii Cabdullaahi yara sheegayna xaq uu yeelan doonaa waana helayaa dhirta intuu rabo inuu beero ka hadlay wadooyinka la dhisayo in qorshaha lagu daro in dhirta lagu daro Cabduqaadir waxaan malaynayaa adeerna Cabdullaahi waa maqlaysay geedku markuu geed yar yahay wuxuu leeyahay cadow badan dad cayayaan biyo qorrax ciid wax walba cadow bay yihiin marka wuxuu u baahan yahay xanaanadaasi marka nin dawladda hoose ka socda oo booyad tuubo laba boolasho wata afka hadduu geliyo waxa laga yaabaa geedku inuu ciidda ka soo baxo banaanka u soo booday waxay marka ku qurux badan tahay qofka uu darbigiisa ku beeran yahay gurigiisa ku beegan yahay inuu gacanta ku dhigo oo maamulo oo taxanaaneeyo oo biyo tartiiba ku shubo oo nafaqeeyo oo cadowga ka celiyo waana midda hadda wacyigelinta hadda aynu wadno caawana ay ka mid tahay hadhowna sii socon doonta waxay tahay geedka waa in xanaanada uu baahan yahay uu helaa bulshadana ka helaa waxaa kaloo aan u malaynayaa beerta degmada ayaa su'aalihiisa ka mid ahayd maxaa loo furi waayey beerta degmada hadda ka hor baa la furay xilligaan iga horreysay oo waxaa la damcay niman maxaa la yidhahdaa dhisa oo hagaajiya oo kadibna markaa dadka loo furo cafeteria laga sameeyo laakiin bulshadii magaalada joogtay way ka hortimi subaxii markay dhagaxii ugu horreysay lagu dhisi lahaa soo dhigeen ayaa dhagax loo qaatay sidaas horta mashruucaasi ku baaqday ilaa hadda anagana walwalka waxaan hayaa haddii dawladda hoose la yiraahdo iyada ha wadana ma wadi karto oo waxaynu ogaanay waxyaabaha qaarkood public ma wadi karo private buu u baahan yahay rangareeya dawladdu ha lahaato dadka ka dhaxayso laakiin cid private ah oo maalgelisa oo ka dhigta maxaa la yiraahdaa cafeteria ka dhigta oo ka faa'iideysa oo bulshada uga faa'iideysta habeenkii iyo maalinkii laakiin hadda anagu haddaan ka furno arigun baa cunaya dhulkuna cidlo noqonaya waxay u baahan tahay marka in gacan ku hayn dama ay sii yeelato dhirta la sii hagaajiyo dhir qurux badan lagu daro qaabkeeda la hagaajiyo cafeteria wanaagsan laga sameeyo habeenkina lagu xiro loo soo dalxiis tago bay u baahan tahay intaasna private baa samayn kara
laakiin weli annagana baqdintii baa nagu jirta laakiin waa noo qorshaysantahay waa isku dayeynaa bal wixii la sameeyaba haddii rabbi sanadkii noo qorshaysantahay oo weli waxaan rabnaa maalgelinta in annagu samayno oo si aan ayan dadku ugu qaadan in qof shacaba la siiyey hawshaasi marka waa hawl socota dhulka la xirmeynaya iyo cagafyada ayuu ka hadlay cabdiqaadir dhulka la xirmaysto dee waxa xirmaysanaya waa warkii aan markii hore ku bilaabayo dhulkii gacantii dowladda uu ka baxay oo gacan dad buu galay qof aan adiga kaa xigin baana kaa sheeganaya hadhowna mid lacag la rooraya ka iibsanaya hadhowna waa xirmaysanaya oo ama ciid ha ku xiro ama silig ha ku xiro ama dhir intuu soo jaro dhirtii ku dhex taalay iyada ha ku xire hawshaasi marka caqabadaha bulsho ee hadda taagan ayay ka mid tahay cagaftuna mushkiladaha ugu tirada badan laakiin nidaamku waa degsan yahay xeerarku waa degsan yihiin siyaasadu waa degsan yihiin dhulka lagu ilaalinayo waxaas lagaga ilaalinayo laakiin fulintiisa ayaa waxay u baahan tahay in dowladdu xoogsato nidaamka fulintiisana ay u sahlanaato hay-adaha sharciguna ay wada shaqeeyaan waxaa jira xeer ay soo saartay wasaaradda hadaayatana siduu idiin sheegay oo ilaalinta deegaanka ah oo wax walba ku qoran yihiin waxaa jirta xeer golaha deegaanku soo saaray oo taas isagoo tix raacaya isaguna si fiican ugu sii faahfaahiyey habraacyadii waxaa jira shirar tuulooyinka degmada Garowe intay qabsadeen aanu kala qayb galnay anaga wasaaradda deegaanku oo go'aamo kuwaas dowladdu soo saartay ka sii adag oo ay ka mid tahay xaabadii hadaayad laga hadlayay ay gaareen kadibna aan ku taageernay oo ay fuliyeen oo dhibaato ka dhacday oo baawar ku burburtay oo dad isku laayay oo cidda wax ka dhacay oo mushkiladahaas ay ka dhaceen ayaa jira marka waxay u baahan tahay fulintu xoogaa waxa ka imaanaya ilaa xad in maaragtay dadka ay iska hortaagaan in xeerarku ay fulaan meel walbana dee boolis iyo ciidan ma taagna oo saacaddaa wax qabanaya arrintaasi marka waa arrin bulsho waxaan iyadana la socodsiinayaa kusii darayaa qof kale oo ka hadlay bacaha iyo waxyaabahan ilaalinta deegaanka iyada laftii qaybka ah sababtoo dhirta waxaa laynaya bacdaa ka mid ah bacdu geedka ay isku marto way dilaysaa waxay ka qarinaysaa hawada iyo qoraxda iyo waxaasoo dhan bay ka qarinaysaa geedku ma sii korayo mushkiladahay ka mid tahay dhirtii oo dhan bay isku martay arrintaasi marka golaha deegaanka go'aamadii ugu horreysay oo gaaray bay ka mid ahay in bacda la joojiyo laakiin waxay nooga fuli weyday hay-adihii fulin lahaa oo ah booliska iyo kantaroolada iyo wasaaradda maaliyadda canshuur baa laga qaadaya magaaladana waa la soo gelinaya marka Garowe way noqon weyday jasiirad gaar ah haddaan waddanku uusan go'aan guud qaadan go'aankii guudna ma uusan dhicin oo lama fulin waana garanayaa anigu muddaan baarlamaanka ahaa xeerkii koowaad ee 1999kii baarlamaanka Puntland soo saaray wuxuu ahaa joojinta bacaha ilaa maanta ma ay fulin markii hore waxaan ku cudur daaran jirnay oo oran jirnay xeerku wuxuu fuli waayay wixii bedeli lahaa baan lahayn laakiin waddanka waxaa laga furay warshado soo saaraya sallado maxaa la yiraahdaa deegaanka faa'iido u ah durba qorraxdu iyo dabayshu ay baabi'inayaan oo maxaa la yiraahdaa waddanka u wanaagsan oo haddana warshadihii waddanka la keenay iyadoo warshadihii noo yaalaan ayaa bacihii haddana dekedihii iyo kastamadii inay kaga furan yihiin taasina waxay u baahan tahay go'aan guud oo dowladeed ciqaabna cabdiqaadirow xeerarkii iyo ciqaabtii iyo wixii oo dhan way yaalaan fulinteeda waxay u baahan tahay law enforcementiga waxayna u baahan tahay inta ciidamadu ay ka awoodsanayaan inay nidaamka fuliyaan haddii rabbi yonistan uu soo jeediyey wuxuu yidhi xaafadaha dhirta wanaajiyana canshuurta laga dhimo kuwa maaragtay aan dhirta lahaynna wax la saaro كل يروح كده يسكفتنا الدولة ده هو وكحد شيء منيسة إنه واحد لديمه لكن عن كل شيء جيع معلي يونسو عشور تجريها لا يقعده مركي لبربر ديجو الدونك واحد جريها لو عشوره وحن آدي يروي آد بيرته سنة كي هالمر لا يقعده على أبا جريان هذا عشور جريها وين مجرد إنه كم دي هاي عشور تسعين $100 سنة كي جار مركا عشور laga dhigo iyo mid la saaratoon wax weyn ka bedeli mayso dareenka 5% hadda ka dhino oo $100 $5 macna muuqanaysa inuu maaragtay geedkaas uu ku badbaadiyo
arrintu waxay u baahan tahay sidaasi ka duwan laakiin canshuurta wax badan oo haddeer maxaa la yidhaahdaa haddii lagu kordhiyana wax badan ma noqonayso xataa haddii lagu kordhiyo waan iraan gurigan aan lahayn geedo canshuurta lagu kordhinaya waxaa laga yaabaa haddii la yidhahdo boqolka boqol baa lagu daraya intaas inayan qofkaas ayan dhaqaajin laakiin qofku wuxuu u baahan yahay wax niyadda ka soo go'ay maskaxdiisa galay wanaag uu u arko isagu uu aaminsan yahay hadduu aamini waayo waxba ka qaban mayo waxaan u baahannahay markii wax la yidhaahdo attitude change ama behavioral change dadka in dhaqankooda iyo qaabkay u fakerayaan iyo aragtidooda la bedelaynu u baahannahay haddaynu khasabnahoo baalki ku samayno wax badan iska bedeli mayaan arrintaasoo kale marka waxaan si fiican uga hadlay Khalid oo yiri dadku in la jahiyay u baahan yihiin dhiraynta in lagu wacyigeliyay u baahan yihiin maskaxda dadka in lala hadlay u baahan yihiin arrimo noocaas oo badan buu ka hadlay arrintaasi waa mid sax waana mid hadda aynu halkan u fadhino jaamacadaha u tagnay haddana aan rabno in wacyigelinta u samayno waa inuu dadka maskaxdiisa bedelnaa hadda ka hor baa maxaa la yidhaahdaa muqdisho ayaa la isugu yimi meel badan oo qashin badan magaaladii yaallo oo magaaladii burbursan tahay marka niman badan baa hadlay magaaladaan horumarino qashinka aan ka qaadno dhismayaasha aan dhisno waxaasay yidhahdeen marka nin raggii joogay wuxuu yidhi warkaas waxaa nimankii waddankan saa u galay oo dhirta oo waxaan burburiyey oo qashinkan meesha dhigay oo waddanka baaba'shiisa weliba joogaan dee haddii aynu iyagii baa weli joogeen yaa dhisaya marka waxaynu u baahannahay in maskaxda dadku ay gaarto inay iyadu wax dhisto oo ayan waxba burburin nadaafadda waxaynu u baahannahay qashinka uu ka hadlay ninka la yidhaahdo uu ka hadlay Khalid qashinka dad baa soo saara guri buu ka soo baxaa ama meherad buu ka soo baxaa bini aadan baa sameeya bini aadankaa sameeyey dee kolley wuxuu u baahan yahay in qashinka laga qaado waa loo diyaariyey agabkii shirkadihii dadkii ka qaadi lahaa goobihii u geyn lahaa haddana ma yeelaye habaralkaa marayso miskiin intuu tuurta u saaro bay reer kale ag dhigaysaa ama toga geynaysaa waxaasna waa dadkii unbaa samaynaya ilaa dadku marka maskaxdooda ay gaarto war qashinka aan tuuro anigu socially responsible waa inaan noqda xabadda faynta ah oo aan la soo baxo dhididka isaga tiro haddaan waddada ku tuuro markaa bulsho ahaan xilkas maaha ilaa marka bulshada wada xilkasa oo ka ilaalinaysa qofka maaragtay qof walba uu isagu isxisaabinayo ay gaarto qashinkuna bannaanku oolayaa innaguna waa daba ordayna hadba waa ka qaaday garoowe saasay waxay ku tahay magaalooyinka ugu nadiifsan Soomaaliya laakiin waxaa la daba joogaa qashin dad soo saaraya laakiin haddaynu intaa qaadan lahayn maanta waxaynu haddaynu nin geed beeri lahayn ama guri walba geed lagu beeri lahaa magaaladu cagaar bay wada noqon lahayd haddii qof walba qashinkiisa maarayn lahaa magaaladu qashin la'aan nadiif bay noqon lahayd Kigali baan tegey saxar lagu arki maayo sidaasay u egtaa hadda meeshaas u egtaa sababtuna waxay tahay guri walba lacagan badnayn $5 iyo 5 senti ayaa laga qaadaa $5 iyo bar wiigiina mar baa laga qaadaa meheradahana joogtaa laga qaadaa lacag waxaa ka badan baa laga qaadaa qof walbana xilkasnimadiisu laabtiisa gashada waxba tuuri mayo waxa uu soo qaado meel buu ku ridaya intaa marka intaynu ka gaarayno waxaynu ahaanaynaa bulsho la daalaadhacaynaysa qashinka maaragtay cudurrada ka yimaada dhir la'aanta iyo maaragtay dhibaatooyinkan roob la'aanta iyo indhaha iyo dadku xataa waxa in badan oo indhaha dadkeena ah meesha qalalan inuu fiirinaynaa sida inoo galay haddii cagaarnaan lahayd sidee waa indha dhaamil iyo muuqaalkeena iyo maskaxdeena marka waa la daalaadhacaynayna marka waxaan isleeyahay waxaynu u baahannahay inaynu bulshada bedelno inaynu kulamadaana badinno sida Cabdullaahi Salaad uu yiri dad badan loo yeero kulamadaan la badiyo insha Allah taala